محاد عيه سأجرجر وسائش سفي عن أجرجر نقصه وايه وحلو بهاي إن أتكفي وايه مدن عمر كاجا جرو أوكي هذيك محاد عين وروحي يوم واب قوي ساي محكو قد هذيك ترتيب ها هلا شقيست وريها كبير هذيك وحول بو أدقوي ساي محاد عين مايو ويا جيب عمر كاجا جرو waxaan ka rabaa sokorta isla markiisa qalbigeena oo kale looma guwo tartiib in loo guwo waay dhaqso waan fahmay jiif dhaqsada hay way maqlaytiin hawsha la wado Aku salam jiif karim in qoftaan neebal waay waa qoftii aniga ku sheegay gacanyarad ku noqrib fiiri xogaa biyaha ku dar leed way fiicnaan leed hadii kale yiri meesha maxay qabanaysaa ku salaam jiif jidid ka qabanaysaa neevo ayno qoftaan ku sheegay gacanyarad ku noqribtay wax ku sii dheer cunadana si fiican oo kari taqaanaa gacanteedu way macaan tahay hadaartu waa fiirin kartaa midaas tan sal iyo bar ayaan aqaan meeshan waxaa loogu baahan yahay dad khibrad u leh sida raashinka ay u kariyaan maaha inay qof madaxiisaba dhibaato ku wato uma baahniyo socoto ka tag meeshan soo bax inakeen kaaliyakh jiif kadib aniga waan la socdaa adiga hore inaan qaladkaaga gale laakiin markan oo keliya jaanis isii mar hore fursad ayaan ku siiyey fursaddaas adiga waa ka faa'iidaysan weysay kabiir gadaasheeda fiibal wax waayahay jiif kadib aniga kug sax ayaan ahay taasna waan ku caddayn karaa weliba waqti xadirkan haddaad diyaar u tahay adiga haye anta kale si fiican aad u taqaanaa soo maahan waryaa kabiir kaali soo sii dharka ha xiratay qofka markii waxqabadkiisa la arka ayuu ammaan leeyahay intaad ammaan filaysa adiga iyo aflagaadi ku soo bixin waad mahadsantahay jiif waa tahay inakeen maxaa qabanaysaa yiriise hooyo inta ku sugaya hooyadaa shaqo kale ay ku jirtaa ma fahantay adigana waxaa ku roon inaad meelahaas ku sugtahay okay idagaasiya maraba inaan kula dagaalo haddaba igalaah anaa haysataa taaraha iigu darin fiiri bal halkeeda sida uu waaweyn yahay gabriya wax makuu sheegaa halkan iskaga tagaan ku dhahna okay socay fadlan keliga meesha iiga tagaa ku dhah
horta noo sheegay ilaa hadda way dhimatay waa kaaga tacsiyanaa kulli mahadsanid mar altafiya horta guri wanaagsan ay kariyeysa laakiin waa waaye markaana marabi aniga iyadaada inaan waayo cunto wanaagsanaa kariyoosaa kulleyba abax beri waa soo shaqo gelaysaa waad mahadsantahay jiif waxaan ku ballan qaadayaa inaanan ku ceebayn doonin gacmahaaga allah kuu dhaafo shaqada allaha idin fududeeya asxaabe tijaabada waan ka baxay runtii haddana waxaan noqotay jiifka canyarihiisa waa wareey hambalyaan ku leeyahay waaba la yaabay adii jiifka hore maad isku taqaanin waxaaba la yaabay sida hore kaaga qaabile sanado kahor ayadii ayaa waxay i geysay meel raashinka lagu karinaayo jiifna meeshaas wuxuu ka ahaa macalin anigana wuu itijaabiyey kaalintana lamba kow ayaan ka galay asagana jikadiisa ayuu igu casuumay waqti aad u macaana meeshaas waan ku qaatay runtii anigana wax walba si fudud ayaan uga tegay tan indhadhacaysana ma aanan ogeyn runtii waxay u muuqataa caloolweynahan wada shaqayntiis inaad u baahnayd adiga taas adigaan kaaga mahad celinayaa awaalkaana waan kuu haya mana ilaawi doono waxaan adigaa naftaada u sameeyey tamaam laakiin arrimayntaa ma kuu fiicna oo ku dhoogaa soo baxna halkule banaan kuu soo bax gabadheeda ma aragtaad gabadhaada meelaana ku cajisto baxdaan u malaynaya waaye maxaad ugu celin weysa banaankiina aada allah allah gabadhada miya waardii kaaga ahay hayaal gabadheeda hayaal ku aawe hayaal gabadheeda hayaal ku aaweyna adiga hayaal 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 gabadheeda hayaal hayaal aku dhacaysaa dheebal abu baark ma ku dhufatay maxaa ku dhacay qoftan ma taawan baa aniga oo sameed siyaaqayan balaasi waa awan balast oo kaadibi saan maxaa ku dhacay walaal soo kac gaari kuma dhufan oo kaadi waxa ma gaarin qoftan anima taawan ma ani sidaas ila baahan maxay la qoftan baark waa ku dhufatay isbitaalan geenina soo kac balaasa loo caano ilbaabka baa kii furana isbitaal geenayo ku dhaqsada hooyada waxa ma gaaray yiriisay aamus ma yiriisay hooyada ma dhimanayso kala soo kor gaaray degan waxa ma gaarayaan ma taawan waxa ku dhaca qoftan waa masantiin ku dhaqsada yaqay
xaqiiqatan dhiiggeeda baaritaan baynu u dirnay waxa qasaba in raajo la saaraa waxa macquul inay wax soo baxaan waayahay hooyaga dhimanin yariisi cabsida iska daa hooyadaa way fiicnaanaysaa maxaad ku hadlaysaa hooyada hadda ma dhiman way nooshaha gabadheeda isdeji marka sida ilyaalkoo kale been ha ii sheegin aniga waan ogaa oodhasha anigaa geliyay waana dhimataa hooyada haddii ay dhimato aniga yaay haray hore aabeega waayaa haysta ani yariisi hooyadaa way fiicnaanaysaa waxba ka cabsan maru okaade warbixinaga sii xaaladeeda runtii way iyada soo manaaxin dhakhtarkan wuxuu dhaha baaritaan lagu sameynaa kadib lee la ogaan karaa waaya wixii loo baahan yahay baaritaanaha lagu sameeyo natiijada inaan ogaado aad bay muhiim ugu tahay mideeda kale gabadhan way cabsanaysaa waxay leedahay hooyadee way dhimatay hal mar haddii aad qancin karto way fiicnaan lahayd u sharax gabadhayda magacaane hayaal gabadhayda wax laga walwalo ma laha hooyada goordhow way soo kacaysaa wayna caafimaadaysaa gabadhayda walwalin haa wiilow maxaa kugu dhacay maanta dhan ayaan ku sugayn halkaanana kuu fadhinay mideeda kale master adaley wuxuu leeyahay waxba ma dhadhamina ilaa uu yimaado buragayga shilaan galay isbitaalkan joogaa shil noocee ah haddana annagu dad maraysa ahayd macnaha sidee wax u dhacay gaariga kuma dhuban ayda war anigoo ku fahmi lahay sidee wax u wadaa waa naag iyo anigteedoo isla socday ahayd markii aan arkeen gaariga bareegan hore ka qabtay kuma aanan dhufan haddana saasay tahay iyadoo way socday isbitaalka ayaa u soo qaaday naagta soo ma wanaagsan dhakhtarka baaritaan ku sameynaa natiijada maysan soo baxeen wili xaaladda haddii adag tahay aan ku imaado adiga master ateliya xali inta anaa xalinayo ma fahante dhegeyso naagta gaariga kumaad dhufan soo maha waad iga hubtaa maya yaqay kuma dhufan burak haddaba waa maxay soo taas maxaan ka ogaa wiilow dhegeyso in aad islaalisaa maalmahan khiyaanadan way socotaa naagaha adigoon wax gaarsiinaysa suuxinaan sida wax kaaga qaataan maya hadda waxaan sugayay waa natiijada baaritaanka oo keliya beelo warqadaha le gacanta ku haysa haddii aadan waxba ku dhufan wax walba way soo baxay anisoo kuma dhahay waxba kuma aanan dhufan okay waxay ahaato adiga anaa xalinaya yiriise jooji waa ku barya reeb waa shanqarta yare isbitaalaan joognaa maxaa kugu dhaca yiriise canugaa madaxadag weligee ma arkin gabar yaraa tahay dhaqamada caynkan oo kalea kuma wanaagsana iska daa hoy idhagaysaya ani waa weynaana ku dhah mar dhowe iskuulaa liigeynaya taas man xaargeliya haye haddaba dee saas laba qofood waaweynaan wada sheekaysanayna taas ha ku daalinaa ku dhahay maxaad ula jeedaa waxaa yeelay dadka ajnabiga iga ah aniga maba lahadla qaasatan kuwa xunxuno adoo kale dadka xunxun ma dhaad الله صبري سي ilma ma jiraan dhegeyso waxaad jeceshaha ood cabaysid ma jiraan aan kuu keeno marabi maxaa yeelay dadka ajnabiga waxba ma ka qaatay aniga sidaas darteed marabi tamaam hadda waan isbarannay ajnabi kale ma nihin soo maaha marka aan kuu keeno walaal xisaanaysid miyaa cunug yarisha rabta inaa khiyaanto miyaa igala xano
الله الله ما حديقن ما حوا شرط ما له anigaa sharad ku dhalatay la xataa arrinta la aad tahay hayaal gabadheeda hayaal hayaal gabadheeda hayaal aawe Istaji adiga gabadhaada bannaankay fadhisaa weyna ku sugoosaa ma hubtaa ma fiican tahay way fiican tahay dhibaato ma jirto adiga hadda xanuun maa dareemaysaa xoogaa tawardare ayaan dareemaya laakiin hadda waan fiicanaa gabadheeda inaan arka ayaan u baahanahay gabadhaada waan ku keenay adigana sariirtaada iska sii jiif يريسي معانا هايدا يا أديك وضد الإحداث بحكي قبنيسين قاري سمحة إذن هركاني يشاك أفكار ما هذا وكل هدلو يا kaal addabaal ma taa ma fahamtid miyaane qofka ajnabiga ah ma la hadlo ma ku dhihinoon هاي كالكاس حالة كور aniga adigaan ku raadinayay maxaa jira hooyada ma dhimatayne maya gabadheeda hooyada way soo kacday inay ku aragteena rabtaa runtaa miyaane aha soo bax haddana keen waayahay may caawinaysaa run ahaanta ilmaha